السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا معلم وناكسن حتى حصل كنا هني قران كاربورك وشاكو مع سود ويندو الناس فنانين تا سوغار دون كالكايو وشوف هو دونتو هبينك إيدا إن شاء الله والله سعادة فلوق أد قروح بدن يعني يصدق دونا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا إيجيا كالكايو إيجيا عندما إيجيا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا كل lagu نستو كل lagu هتا كالكايو إيجيا دوه مخالد كالكايو طبعا فرصنا مثلا هي فرصه سنه روب ينك يعني ابي وحيليدي مثلا الدجل goor soo raac فرصه دوه هي قاعد كالكايو قبن doona waliba kalkaasay insha Allah maalinta ciid waxaan door biday inta nirow ciid ayna halkan ku ciid يا سود وهذا laga maqnaa dhalinyarada kale waxaan leenahay ku soo dhawaada galkaayo galkaayo mar walba waa dhalinyaro u diyaarsan soo dhaweynta dhalinyarada kale ama Soomaaliyeed ee nooga yimaada deegaanada fogfog ama magaalooyinka fogfog siyaasi lamid ayaan maanta idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada galkaayo waa hoygii dhalinyarada hoygii nabadda waxaan rajaynaynaa maalmaha nala joogtaan waqti farxad leh inaan maaragtay nagula joogi doontaan waxaan soo dhaweynaynaa saaxiibadeen saaxiibkeen legend biibshe MJ iyo waftiga fanaaniinta mataqaanaa la socday sidoo kale waxaa jira team dhalinyaro ah oo iyagana lug noogu yimid oo Somali Academy ustaadka uu hogaaminayay Zakariye oo waxa weeye iyagana garow noogu yimid runtii waa team ku soo kordhiyay dhalinyarada iyo fanka barnaamij mataqaanaa heedii dhaqan oo mataqaanaa aad wanaagsan dhamaantii waxaan leenahay soo dhawaada gaalkacyo waa xarun dhalinyaro fanaaniinta imaanshahooda iyo barnaamijyada showyaasha waa wax nagu cusub waxaan rabnaa inaan noo daartaan haddii aanan experience aanan ku ahayn laakiin waxaa sharaf iyo qiyam noo ah inaan haysano dhalinyaro firfircoon oo soo dhaweynta iyo mataqaanaa aad ugu fiican iyo gobonimada aad ugu fiican gaalkacyo annaga waxaan dhahnaa waa xarunta dhalinyarada dadka halkaa jooga waxay isugu jiraan dhalinyarada Galmudug iyo dhalinyarada Puntland magaalada xuduud ma leh shaakan joognaa waxaan soo dhaweynaynaa waa fanaaniin dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin ah rabta inay magaalada nagula baashaaraan waqti fiican nagula qaataan maalmaha ciidda nagula dabaaldegaan oo runtii safar dheer noo soo galay waa dareemka dhaa Nairobi waa Kenya marka waxaan leenahay si qalbiyan ah oo wanaagsan oo
sharaf iyo karaamo ku jidha walaalaheen soo dhawaadaan leenahay waxaan leenahay mininkiina waayo dhaan reer xamarku laakiin markay dhahaan reer xamarku mininkiina waayo waxba uma heliyaan annaga wax badan noogu heliya waxaan leenahay soo dhawaada insha allah waa wada ciyaari doonaa oo wada baashaari doonaa waxaan soo dhaweynaa kulaankeen waxaa dubsha iyo waqtiga uu gaabinayo waxaan leenahay ciid mubaarak kul caam maasha allah أنا بالفيشن وحاجة حاجة أنا واحد من المتاجنا كان من هاي حفلة مقابل كم من كوكا هاي ولا وهالك محمد وهالك بيبشة حلا يكسروا الكعيو يكسروا هذا تكين هويو لو حلا هاي فحبا إن شاء الله هاي كيدنا حلا وعذرها وين المستوى أفضل وفرصات سيدنا كرامتي لماذا له sida aad loo soo dhaweyseen waan kaga mahadcelinaya aniga iyo walaalkay maxamed biibshe hadal badan ahaan ma buuxso waxa aan u nimid waa dareemi kartaan inaan waqtiga la qaadano inaan la farxno inaan la baashaalno inaan waqtiyada ciidda aan la qaadano insha allahu tacaala waqti fiicanna waynu wada qaadan doonaa waa wada baashaali doonaa habeenka ciidda waxaan leeyahay kal iyo laab anu meeshaan taariikh gooniyeyn ugu leedahay weligay horta hal maraan halkii marna waa ku guursan marka taariikh gooniyahay ugu leedahay waxaan u malaynayaa saddexdii habeennimo inaan soo galay lixdii maqribnimada aan ka baxay intaas inta u dhaxaydana aan maaragtay hawlo aad maaragtay u qurux badan aan ku qabtay saaniya iyo asxaab badan oo ka mid yahay oo hogaaminayay walaalkay Sharaf Shaaciye marka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo qiimihiina iyo qadarintiina waa idinka qabnaa waana baashaali doonaa qof walba waxa weeyaan waxaan ku salaamayaa maqaamkiisa iyo magaca halkan uu ku joogo waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo habluhu inta badan markii ragga loo fiiriyo oo ka adkaysi ogaa muujiyey adeeg inta qorraxda taagnayd iyo weliba iyadoo ramadaan lagu jiro waxaan ku faraxsanahay magaaladii Gaalkacyo joogo magaaladii calanka marka laga hindisay aqoonta dhanka gobonimada halkay ka bilaabatay waana sababtan u doortay inaan magaalada Gaalkacyo midna waxay qayb ka tahay inay ku nool yihiin bulsho dhalinyaro dabcan isku xiran waxaa la kulay hantiisa ma muuga Gaalkacyona hantooda ma muugo dad isku xiran yihiin bulsho isku timid oo aanan kala soc lahayn nabadda ay heleen in la baraarujiyeen u baahan iyo wada shaqaynta dhalinyarta waxaana sharaf weyn yahay inaan halkan ka bilaabo socdaalkii ugu horreeyay aan weligay qabto show ah iyadoo aan ka bilaabi karin meelo badan laakiin aan ka doorbiday magaalada Gaalkacyo oo aan rabo inaan ku shaqeeyo bixi marka dhalinyaro badan inay halkan u soo hanqal taagan yimaadaan maadaama la yiraahdo Gaalkacyo show saas laga qaban karo waa laga qaban karaa horna waa looga qabtay kana waxaan jeclahay inuu bilow u yahay showyo kale imaan doono Maxamed Jaamac oo isagoo ku dhisan mahad celinayo safar kale shaqooyin ku jira ka soo waday Shariif Shaaciye oo isaga ku dhisan hawsha wax badan ka waday oo isagana ila soo safray dhanka kale dhalinyarta anoo kala qaadin labada dhinacba oo aan leeyahay si guud iyo midnimadooda waan idin mahad celinayaa xabarmaanada fanaaniinta waana dhowaa Gaalkacyo waan joogaa habeenka ciidda iyo waxa inoo balana dabcan 5 star ilaahay